wasaaradda cadaaladda gobolka Sanaag oo kaashanaysa xarunta caafimaad ee Muuse Medical Center iyo xildhibaan Cabdikariin Meecaad Xuseen ayaa daaweyn iyo daryeel caafimaad u sameysay maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe ee magaalada Ceerigaabo. adeegan caafimaad ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo daryeelka caafimaadka iyo ilaalinta xuquuqda maxaabiista, iyadoona la bixiyay baaritaano caafimaad, talooyin caafimaad iyo daawooyin ay u baahnaayeen maxaabiistu. isuduwaha wasaaradda cadaaladda gobolka Sanaag ayaa sheegay inay sii wadi doonaan adeegyada noocan oo kale ah si looga warhayo xaaladda caafimaad ee maxaabiista ku jira xabsiyada magaalada. dhankiisa taliye ku-xigeenka xabsiga dhexe ee magaalada Ceerigaabo ayaa si weyn ugu mahadceliyay wasaaradda cadaaladda iyo bahda Muuse Medical Center doorka ay ka qaateen daryeelka caafimaad ee maxaabiista, isagoona tilmaamay in adeegan caafimaad uu wax weyn ka tari doono caafimaadka iyo daryeelka dadka ku jira xabsiga. ilaahay baan mahadnaqaynaa isugu kaaya keenay goobtan iyada ayaan hawsha ka wadnay oo ah xabsigii dhexe ee degmada Ceerigaabo. marka ilaahay baa mahadda iska leh, waayo haddaan ilaahay suuro gelin intan oo ay isugu timaadeen xubnood oo badii la yiraahdo takhasustooda leh, runtii mana aha markii u horeysay mar badan oo horena hawshan way qabsoontay magaranaysa. hawsha waxa weeyaan waxa loo shaqeeyay 46 maxbuus baa loo shaqeeyay oo caafimaad baaris iyo hadii la yiraahdo daweyn leeso hadii la yiraahdo marka la shay baaray. marka aad iyo aad hawl wanaagsan waa ka dhacday runtii aan ka markacaya tawarucan waxa fidiyay macnaha farsamahan mooy dhaqaale ahaan waxa fidiyay xildhibaan Cabdikariin Meecaad baa fidiyay. aad iyo aad cid kasta oo wax ka geysatay oo mahadnaqayna noqono meesha aan malaynaa markii u dambeysay waxaan ku rajaynahay inay nagu soo noqon doono tabarucan caafimaad nagu soo noqon doono. sida taliyu sheegay maanta waxaan isku nimi hatay jeelka Ceerigaabo si aan uga filno barnaamij caafimaad oo markii labaad aan hawsha ka filno kullina sida la sheegayna xagga dhaqaalaha wixii ku baxay qarash waxa kafaalo qaaday oo bixiyay xildhibaan Meecaad oo aad ugu mahadsan. xarunta Muuse Medical Center way fududeysay si shaqaalaheedu si hawsha soo qabsoomi lahayd oo qofkii xabsiga ku xidhnaa soo aan la qaadin meel fog la geyn oo aan suuqa la geyn halkiis lagu yimaado oo halkiis lagu wareysto oo halkiis qofkii dib u baahan lagu daweeyo kii u baahan shaybaarna laga qaado oo loo soo baaro dib lagu soo cesho. hawsha saan u nimi waxaan ballan qaadayaa kulley inaan noqon markii u dambeysay taliyo cusubay oo haddii la helo macaawino kale ee dibadda ka timaada iyo haddii anagu ugu talagalaba inaan ku soo noqon doono insha Allah. ugu horreyn ilaahay baa mahad leh maanta shaqadan baaxadda leh inoo suurtageliyay inaynu fulino. waxaan maanta joognaa xabsigii dhexe ee magaalada Ceerigaabo bishii 6 afarteedii 2026 waxaan u nimid hawl caafimaad in laga fuliyo oo dhakhtar Mustafa aw Muuse iyo tiimkiisu ay marayaan hawshaas oo dhaqaalaheeda uu kafaalo qaatay oo bixiyay khayr Allah siiyay xildhibaan Cabdikariin Meecaad. waan uga mahad celinaynaa xildhibaanku shaqada ballaaran ee la qabtay inuu dhaqaalaheeda iyo inay qabsoonto isagu uu leeyahay. maxaabiista la daweeyay 46 maxbuus ayaa maanta la daweeyay, mid shaybaar u baahan iyo mid dawo u baahan iyo mid la talinba u baahan ayaa maanta loo shaqeeyay. waa arrin loo baahan yahay oo qofka maxbuuska ahi caafimaad ahaan, waxbarasho ahaan iyo inuu helo waxyaabaha asaasiga ah waa laga maarmaan si markaa uu isu difaaci karo, kiiskiisu u socon karo. qof aan caafimaad qabina isma difaaci karo, maxkamad lama geyn karo, ribood kale lama weydiin karo. marka marleba waxa kow ah in qofka caafimaadkiisa la daryeelo. waxaan dadkeena xabsiyada ku xidhani daryeelka ay u baahan yihiin waa waxayna wada saaran. xarun gaara iyo qof gaara iyo xildhibaan gaara ma saarna, waa wax la inaga wada rabo inaynu ilaalino. waa shaqadeennii oo aynu qof waliba u diran yahay inuu ka qayb qaato, sababtoo inagu markaynu xanuunsanno markaba xarun caafimaad baynu ka orodnaa. laakiin qofka maxbuuska ah isagu inta la geynayo iyo inta askari lagu darayo iyo inta uu soo gudbinayo waqti dheer bay qaadatay. marka maanta waxaanu ka fulinay iyadoo aan maxbuuskii la qaadin, la kaxayn, halkiisa loogu yimi shaybaarkii laga qaaday, dawadiina insha Allah loo raacin doono oo doctorku mar labaad ku soo noqon doono qof kasta wixii dawo ku haboon iyo wuxuu xanuunkiisa noqday iyo waliba la socodkooda xaaladahooda kuwa u baahan in xaaladahooda la socdo. intaba doctorku uga mahadnaqaynaa.